laabkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo xadhiga ka jiray ayaa waxa laga hirgeliyay jaamacadda Hargeysa waxaana loogu talagalay in lagu tababaro hawlwadeennada hagi doona mashruuca hanaanka casriga ee maamul xisaabeedka dawladda waxaana halkaasi ay kaga faa'iideysan doonaan duruus la xidhiidha mashruucaasi gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa iyo xigeenkiisa ayaa waxa ay ka warrameen waxtarka uu laabkan ku soo kordhin doono hawlwadeennada ay u tababaraan mashruuca casriga ee maamul xisaabeedka dawladda laabkan waa laab casri ah oo aan oolin dhammaan wadanka ma yaalo wadanka meel uu yaala ma jirto waxaan filayaa hatta dadka af Soomaaliya ku hadla meelahooda ma yaalo waa markii koowaad ee laab caynkaas la keeno meesha programkan marka waxa lagu tababaraya wasaaradda maaliyadda jaamacadda waxa lagu tababaraa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda jaamacaduna ka faa'iideysataa dhammaan dadka iyo dalkana faa'iido weyn ayuu yahay saynu ognahay hadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sameynaysaa financial reform aad u fara ballaaran jaamacadda Hargeysa qayb ay ka tahay inay soo saarto dadkii reformka macnaha hadda la bilaabay ama isbedelka lagu sameynayo maaliyaddeena in ay macnaha soo saarto dad tayo iyo macnaha capacity-giba leh say macnaha u fuliyaan ujeedada ay wasaaradda maaliyaddu ka leedahay garyaqaan Xasan Faarax Maxamed xiriiriyaha mashruuca maamul xisaabeedka dawladda ayaa sheegay in looga goleeyahay laabkan in kor loogu qaado aqoonta hawlwadeennada lagu tababarayo mashruuca casriga ee maamul xisaabeedka dawladda hawlwadeennadaasi oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliland muddo uu leeyahay waxa weeye reformkan ama dib u habeentani aynu wadno ee BFM-ku qaybo fara badan buu taabanaya qaybaha fara badan ee uu taabanayo si loo helo dadkii hanan lahaa ee ka shaqeyn lahaa ee aqoonteedii lahaa waa in loo diyaariyo oo aqoonteedii la diyaariyo waxa inoo taala in dadkaasi ka faa'iideysano aqoontooda aqoonta casriga ay heleen aynu ka faa'iideysano meelaha ku habboon la geeyo si ay aqoontoodii casrigii ay ula jaan qaadaan isla markaana ay uga faa'iideeyaan hanaanka dawladda ee xisaabaadka iyo maaliyaddaba khuseeya laabkani oo qalabeeyay ama uu maalgeliyay mashruuca BFM-ku waxa weeye laababka ugu casrisan ee ka jira Soomaaliland haddii aanu ahaynba kan ugu casrisan ee ka jira Soomaaliland ujeedooyin fara badan oo kale oo qaybta aqoonta kaliya aan ahayn ee tababarada wasaaradaha loogu talagalay ayaa lagu qaban doonaa lagu hirgelin doonaa Maxamed Daahir Axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay hawlwadeennada loo tababarayo hanaanka maamul xisaabeedka casriga ee maamul xisaabeedka dawladda iyo kaalinta ay ka qaadan doonaan casriyeynta maamul xisaabeedka dawladda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxa la doonayaa barnaamij ay sii socda oo aynu ku soo saarno maxay ahayd dad aqoon-yahana oo maaliyadda iyo xisaabaadka yaqaan marka la helo maxay dad xisaabaadka yaqaana oo fahmi kara nidaamka maxay public sector international standards qaybta maxay ahayd xisaabaadka ee dawladuhu waxay leeyihiin nidaam u gaar ah nidaamka marka la fahmo lagu tababaro maxay ahayd saraakiisha maaliyadda ka shaqeynaysa waxa fududaan doonta in la helo dad karti leh firfircoon oo efficient ah waxna lagu aamini karo oo akhlaaqiyadka looga baahan yahay amba ethics looga baahan yahay qofka maxay ahayd finance-ka oo component badan ka yahay amba qayb badan oo ka yahay maxay ahayd nidaamkan